waxaan rabaa inaan mayga ku soo dhaweeyo Paul Marino oo loo yaqaan geedi raaga rooble ila soo dhaweeya geedi marka Rufai aad baad u mahadsan tahay inaad inoogu azuuntay barnaamijkan sharafta leh salaan buuxdo aadna idin keenaya kooxaheen oo dhan oo Buulbarti joogi jiray iyo Mark Erickson iyo kulli dadka ay joogi jireen marka magacayga waa Paul Marino ama naanees ahaan geedi raaga rooble ninkii igu bixiyay oo magaciisu waa Islaaw Xasan Guuleed isoo wardiye ah isbitaalka oo nin fiican buu ahaa ala ugu naxariisto hay ma agtiya miya marka kalkaali caafimaad baan ahay doctor miihi waxaan dad badan markay rag arkeen oo caafimaad ka shaqeynayaan waxay yiraahdeen war doctor aniga doctor miihi markaas waxaan dhahayaa nin xil qaada eed qaad taas maraba shaqadeeda aan jecelahay kalkaali caafimaad baan ahay xaaskaygana Shamso kalkaali oo kale oo kooxaheena isbitaalka degmada Buulbarti aan ka shaqeyn jirnay waqtigii 86 iyo 89 oo mar hore ahayd runtii haddii aan ka fakiray anigoo 26 sano baan ahaa markaan tagnay aruur ma lahayn waqtigaas hadda 56 baan ahay awowna waan ahay iyo ayeeyo Shamso marka waqtiga wuu ordayaa marka hadda waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka Hennepin daktarada ayaan la shaqeeyaa ayada takhasuskeedii waa ayada qaybta lafaha takhasuskeedii waa gacmaha in la qaliyo iyo marmar dadka Soomaali way igu yimaadeen oo marka mahmaa Soomaali ah u sheegay waxa uu sheegay ogow lugta waa la dhibaa gacanta waa la dhooraa ishi waa la dheefsadaa oo markaasay ku yireen waryaa ku baray waa cilmigii Soomaaliya maqli jiray laakiin intaan bilaabay horta waxaan arkay waftigii iyo daktarado iyo dad oo reer Buulbarti oo dhab ah oo run ah anigana nin Mareykan ahay oo 3 sano bis baan joogay waxaan u maleynayaa sidii mahmaa Soomaali oo ay yiraahdeen baqal fardo la daaqaya fars bay ismooda marka laakiin runtii aad iyo aad dadka Soomaali way noo soo dhaweyn jireen marka oo marmar waxaan ka yaabay laakiin ma taqaan anoo isbitaalka joogay dadka markay u yimaadeen oo aan salaamo waxay yiraahdeen war adiga miya wiilka af Soomaali yaqaan markaasaan iri aniga nin 56 jir ah oo awoo ah oo wiilka af Soomaali yaqaan loo yeerayo waan ka yaabay ninka af Soomaaliga ma dhahdid aniga wiil yar mihi waa ogahay dadka Mareykanka waxay qiimeeyaan aruurtinimo iyo dhalinyaronimo laakiin aniga sida Soomaali ah waa ogahay dadka dacweyn ayaa maskax weyn sida mahmaada nin 20 jir intuu geed ka boodo tala ka boodo marka dadka waxa uu sheegay kan ciidaaneed ma aha aniga nin weynaan ahay marka wax kasta waqti haboon buu leeyahay waxaan xusuustay markaan Minneapolis soo guurnay 1999 bay ahayd oo isbitaalka Hennepin waxaan ka shaqeynayay Dr. Osman Harare oo nin aan ah oo marka waqtigaas ma jirin kalkaaliyo badan oo Soomaali ah laakiin hadda way tirbadnaayeen taas waa loo baahan yahay waana wax wanaagsan meel kasta aad tagaysaa waa arkaysaa ama daktaro Soomaali ama kalkaaliyo ama sheybaar ama shaqo kasta la arkayo Soomaali baa qabsanaya taas loo baahan yahay markaan arko dad badan oo dadaalayaan in dib u dhiska isbitaalka Buulbarti ay sameeyaan
aad baan u faraxsanahay runtii maxaa yeelay waa ogahay shaqadan waa arrin ka badan hal qof runtii sidii aan waxaan xusuustay niman xamaali ah oo shaqaynayay xamar ayaga way heesayeen markay shaqaynayeen waxay yidhaahdeen quraansho ururte bula waajita quraansho ururte bula waajita saas bay yidhaahdeen oo waana arki jiray quraansho bula jiidaya indhahayga waa ka arki waana run waa sida far keliya fool ma dhaqdo waa runta marka waqtiga gaabnaa oo 3 sano oo aan reer buulaay baan ahaa dadka aad bay noo soo dhaweyn jireen runtii wayna martiqaadayeen oo waa isla shaqaynay waxaan maqlay daraad ruufacay baa ii sheegay umalasadii oo muxubbo hare ee wili way joogtaa Buulabarti waan ka yaabay wax badan baa isla shaqayn jirnay marka shaab badan baan cabnay aad shaab badan baan cabnay iyo hal mar ana geel baan cabay mar laba ma cabay waa ogahay idinku waxaad qabtiin caafimaad inay tahay laakiin inagoo shuban bis waa dhib marka inkastoo Buulabarti waa magaalo yar waa dadka oo reer Buulabarti ah waa dad wanaagsan oo caan ah oo qof kasta waxay faanayaan magaaladoodii ma fahamtay marka anigana iyo inkasta aysan ahayn hal qabiil ah dadka si nabad bay isla noolaayeen runtii saas baa arki jiray marmar aad baan ugu xumahay markaan arkay dadka Mareykanka ayagoo fahmi iskhilaaf baa jira marmar dadka Mareykanka iyo dadka Soomaali anigana markasta dad Mareykan waxa uu sheegayaa dadka Soomaalida waa sida idinku tiin waxay dadaalayaan mustaqbalka caruurtoodii nabad bay rabaan horta ogow diintooda aad bay u qiimeeyaan laakiin waxay yihiin dad gacmo furan aad iyo aad marka aniga ahaan geedi ahaan iyo xaaskayga Shamso wax badan baan ka faa'iideysanay dhaqanka iyo ilmiga Soomaali oo dhalinyaro kasta oo Soomaali ah waxaan u talinayay bal afkiina hooyo baro sababtoo wax badan haddii aad turjuntid ma fahmaysid xagga ilmiga Soomaali marmar anigana waxa uu sheegay tartiib waa baran kartaan laakiin marmar waxa dhacda dadka waalidkooda waxay yiraahdeen wargeediyo abdiyo adiga doqona tahay ma si fiican ma baratid abdiga ka fiican marka kaas loo baahno waxa la rabaa inaad dhiirigelisid sababtoo sida dadka Soomaali ay dhiirigeliyeen xamar markaan nimid waxaan yiri subax wanaagsan oo dadka waxay igu yiraan ma taqaan war afkoodana baratee nin fiican aad tahay marka dheergeli caruurtii way baran doonaan oo marmar maadaama Dr. Cusmaan Isaaq dadka qaar waxay u mareeyaan inaan ahay barwaani marka marmar mahma barwaani waan tuuray mid oo la dhaho sidaad u baranaysaa luug marow لازم لامي ku qaadaya marka Ahmed Ali Hayli Allah u naxariisto soo reer Buulabarti ah isaga macallin uu noo ahaa hogaamiye iyo walaalkeen buu ahaan jiray oo wax badan buu noo sharaxay ku saabsan heesaha iyo sheekooyin iyo mahmaayo iyo dhaqanka Soomaali runtii markaad qof ajnabi tahay markaad meel tagtid adiga wax ma taqaanid runtii ma fahmi kartid haddii qof ku sharaxaya haddii kale wax ma fahmaysid marka aad iyo aad macallin buu noo ahaa oo mar labadeena waa isla soconay Buulabarti nin baa noo soo yeeray wuxuu yiri war Ahmedow
warninkan maraykanka hadduu af soomaali hadduu yaqaan hadalkan ha fasiro markaas waxaan is iri waa ogahay wuxuu dhex doona cagta wax ka day waa sahal waay markaas wuxuu yidhi mataqaan wuxuu yidhi okay wargeediyo dhegayso kan ka fasir wax aanan oran waan idhi oran maayo wax aan idhi ma oran maayo igu yeera ninkii yidhi waa tidhi wax aanan oran aan idhi u yidhi ha yidhaahdo waa wareeray oo marka axmed waxa uu dheh lahaa mahmaadi aabbo kan yar iga eliyo kan weyn igu soo day laakiin isaga wuu diiday inuu igu fasiray wuxuu yidhi warniyahow u sheeg geedi mar kale laakiin tartiib u sheeg marka tartiib buu ii sheegay haddana waa fasiray 5 sano ka hor isoo Afrika uu tagay oo saaxiibadiis buu salaamay oo heestii ayuu nagula dardaarmay heestii waa hees aan ah laakiin heestan mid oo maaragtay beryahan oo kale ma ah laakiin waa sida tan Soomaalidayni haddii ay siinahatay Soomaalidayni haddii ay siinahatay waa subax wanaagsane calankana salaama nin lagu sahdo ha seexan hilbaasita ha seexan nin lagu sahdo ha seexan hilbaasita ha seexan ha seexan soo jeedo si weyn u feejigno marka heeskan inoo baray marka heesahan iyo waxaan markaa maqlo adiga ma fahmayo laakiin isaga tartiib wuu ii fasiray walaalayaalow isbitaalka buulubarti oo sanayin badan ka hor la bilalaqaystay oo eber laga digay in dib u dhistaan waa wax wanaagsan runtii waxaan xusuustay sheeko oo nin gabadhiisa aad bay u jiraneed ayaa ciise masiix u yimid oo baryay inuu gurigiisa tago laakiin inta ay soconayeen nin kale oo gurigii ka yimid wuxuu yidhi macalinka ha dhimin gabartaada ay dhimatay ciise wuxuu yidhi laakiin ha baqin way raysan doontaa markay guriga gaareen waxay arkeen dadka barooranayeen laakiin ciise wuxuu yidhi ha ooyanina gabartii ma dhiman way hurdaa guriga buu galay gacantii gabartii uu taabtay isla markiiba ruuxi bay ku soo noqotay way fadhiistay marka aniga wax kasta waqti uu leeyahay waa sidii heesta Soomaali kale oo maar hore markaad Soomaali joogay Axmed wuu noo baray waa geed harkii waa labada gelin godorkii waa dada kala guurhey balgarooso hadalkaas sida goodir xeregalay u gooxay golaheena sharafta leh u goohay ma ku gaaray hadal go'asho gulaguma ware gogosane hoga anta ho marka hadalkayga waan sii gabagabeynayaa waxaa la dhahaa hadal badan haan ma buushee runta in la sheego ay fiican tahay aniga runtii ma u malaynayo inaan buulubarti aadi doono laakiin runtii ilaah waxaan kaa baryayaa inuu idin garab galo oo inuu muradkiina sahalo nabad geliyo